magaalada muqdishona mar kale hadii aynu eegno maanta waxa musharaxnimadiisa kaga dhawaaqay professor Shaafici Yuusuf Cumar oo u tartamaya qabashada xilka madaxweyne ee maamulka Jubbaland oo ay u baratamayaan musharaxiin dhowr ah walow inta badan musharaxiinta oo dhawaan shir jiraad ku qabtay magaalada Kismaayo ay qaadaceen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland oo ay sheegeen mid uu maamulanayo hoggaanka maanta ee Jubbaland oo ay ula jeedaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo qudhiisu tartamaya markii saddexaad warbixin arinta ku saabsan muqdisho waxa inoo soo diray wariyaheena Haajir Cabduqaadir Noor munaasabadu ku shaacinayay professor Shaafici Yuusuf Cumar inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay waxgarad odayaal aqoon-yahano iyo dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho dadkii kala duwanaa ee kulanka ka qayb galay ayaa musharaxa ugu duceeyay inuu hanto xilkaas waxaana ay u soo jeediyeen haddii uu ku guuleysto inuu ka shaqeeyo cadaaladda iyo in dadka hadiga Jubbaland uu u sinaado madaxweyne waxaad noqon doontaa insha Allah oo isu sharaxday inaad noqoto musharaxa madaxweynaha Jubbaland insha Allah waxaan kuugu ducaynaynaa inaad noqoto ku soo baxdo musharaxa ku soo baxdo madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha haddaad ku soo baxdo Ilaahay uu kugu soo bixin doonaa wax yar baan kuula dardaarmay oo ah madaxweyne waxa deeqda Soomaali horta cadaalad Soomaali baad madaxweyne u noqonaysaa haddii Ilaahay kugu soo bixiyo waxaan jecelnahay Ilaahay inuu kugu soo bixiyo cadaaladana dadka deeqday waxaan kuula dardaarmay inaad cadaalad ku dadaasho Jubbaland ma aha meel hal qabiil leeyahay yani waa meel Soomaali ka dhaxaysa Soomaali oo dhan ay u siman tahay doorashadeeda iyo loolankeeda waa jiraan maxaa la yiraahdaa tabasho oo dadku dhan way tabanayaan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka gudubno oo u gudubno midnimo iyo xaqi loo sinaado iyo in aan ka shaqeyno Jubbaland mid ah loo dhan yahay xaq wax loo qaybsaday insha Allah bismillaahir kariim waan rajaynayaa professorka inuu insha Allah inta ka aqaan inuu yahay nin ka soo baxaya badda Jubbaland marka nin yaqaana oo geography wax ka yaqaana oo difaaci karo oo qoran difaaci kara ayaa hogaamin kara laakiin ma hogaamin karo nimaan aqoonin xuduudka aan leenahay inta kilomitir oo badda ka yahay iyo bari ka yahay haddii taladii loo dhiibo ka warraba waana laga qaadanaya marka dambe mustaqbalka dambe ana marka waxaan leeyahay waa waqtiga aqoonyahanka hogaamin lahaa Jubbaland aad iyo aad buu waqtigiisa u soo baxay professorku waxaan marka soo jeedin lahaa Soomaali weyn inta hadda ka joogtay inta bidii laga maqlaysaba war waqtiga aqoonta loo baahan yahay Jubbaland lagu difaaci lahaa ee hal doorto musharaxa aqoonyahanka professor Shaafici Yuusuf Cumar musharax madaxweyne Jubbaland professor Shaafici Yuusuf Cumar ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto xilkan uu ka shaqeyn doono arrimo ay ka mid yihiin in uu fidiyo dib u heshiisiin kobcinta dhaqaalaha xoojinta waxbarashada tayeynta hay'adaha amniga iyo in dowladda federaalka uu la shaqeyn doono maanta ay taariikhdu tahay 22 bishii 7 2019 waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inaan ka mid ahay musharaxiinta u taagan xilka maamul goboleedka Jubbaland markii la yiraahdo madaxweyne maamul goboleed dadka qaar way naxayaan laano federaalka ayaa waxaan ka dhignay balkanism laakiin aan waxaan dhayaa waa maamul oo simaada federaalka maanta si rasmi ah aan cadeynayaa waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah number 1 midnimada badanaana anigu dantaan ugu qasabtay waan ka soo horjeeday federaalnimada haddana waxaan raadinaynaa federaalka saxda oo Soomaaliya u qalma number 2 cadaalad iyo sinaan waa wax uu qof walba Soomaali doonaya sinaantu waa tan ay cuqaashu ka dhawaajiyeen mar walba aad ka hadasheen qaybta kale oo ka shaqeyn doona insha Allah haduu Ilaahay fursadiisii wax ka mid ah horumarka taas uma baahna sharaxaad waayo takhasuskayga ayaa wuxuu yahay horumarka sidoo kale waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah baahinta ama dadajinta awoodda dawladnimo Haajir Cabduqaadir RTV Muqdisho